cayilna way keenaan lafahana way u fiican yihiin marka ilmahoo kale hooyooyinka Soomaalida waxay jecel yihiin inay carruurta cayiliyaan lafta u dhisaan cunugeeda uu si fiican uu durba u soo koro marka insha Allah ilmaha uga faa'iidee aad bay u anfacaysaa marka hore waxaan u baahanahay digsi sidoo kalena waxaan u baahanahay batarkan waxaan ku darsanayaa 3 qaado oo bur ah burka cad oo 3 qaado aan ku darsanayaa haddii aan u baahdo burka waa ku sii badsanayaa yaro qalka biyihiisa aan ku dhigaysanayaa qalku wuxuu u yeelayaa dhadhan saas furfurkaabuu noqday iskuma dhegaayo saasuu furfur u yahay hadda waa diyaar insha Allah waan ka qaadi doonaa haddii Ilaahay idmo markaas saasuu u kala daadanaya looma baahna inuu burku kaa noqdo uu sida bur caadi ah kaa noqdo markaasa marka haddana waa ka qaadaynaa saxaabe insha Allah ta'ala baaquligaan soo qaatay kadibna burkii baan ku shubanayaa iyadoo subagii iyo intii subagii burkii iyo filfishii iyo cusbadii iyo qalkii waxa igu jira waa hal qaado sokor ah haddaad rabto waad ka badsan kartaa 3 xabo kuna halkan igu jirto saa u jeedaanba intaana isku qasaaya saanu ii noqday laakiin xoogaa wax yar bur baan ku darayaa wax yar in jilis qaadada labadeeda bur aan ku darsanayaa insha Allah ta'ala haddana waxaan ku shubanaynaa bacdan aan ku shubanaynaa hadduu Ilaahay idmo si aan saliidda hadda way ii kulushahay xoogna uma kulula baa ka fiican oo kan weyn durba maaragta saas ayar dabku hadduu xoog kaaga kululaado isagoon kuu bislaanbu kaa gubanayaa marka waa inuu dabku kuu qandac fiican kuu yahay saliid xoogna aysa kaaga karin qabowna aysa kaa ahayn sidoo kale halkan waxay igu jira saa u jeedaan waa sokor waxaan ku darayaa wax yar oo qorfo ah qorfaha budada ayaan ku darayaa saasan kule qorfuhu carafna uu siinayo macaanna uu siinayo hadda waa diyaar waa ka dejinaynaa insha Allah ta'ala waan ka guraynaa waa u jeedaan inaba caadi maahan isagoo kulul baa waxaad ku guraysaa sokorta dhexdeeda qorfihii shiidnaayo sokortii baad ku dhex ridaysaa saa markay tahay saasaad ku leedahay saliidda iyo qorfaha ee sokorta iyo qorfaha dhex gelgelinaysaa marka uu ku dhagaayo uu qabsanaya hadhowna dhadhan fiican buu yeelanaya halka sooskii aan ku cuni lahayn baa noogu jira hadduu Ilaahay idmo hadda waa tijaabinaynaa insha Allah ta'ala sida caadada noo ahayd aad buu u jilicsan wada jeedaa saasoo kala jabaya insha Allah casriyaad ka dhiganaysaa oo quraacad ka dhiganaysaa oo ciidaad rabtaad ku casuumaysaa mar walba وكاسة ما شاء الله بسم الله واحدة قوري كرمان رونهانتي aad buu u macaan badan yahay ma sha Allah adinkana ka faa'iideysta
lagama sheekeyn karo carruurta markaad u samayso koobkooda shaaha cadayska aad ku siiso kale iska arag lafaha u dhismaayo way cayilayaan sababtoo ah borotiin baa ka buuxa ukun baa ku jirta subagna sidoo kale asna lafuu dhisaa batarka ama subaga caadigaaba ama saliid wax kasta oo dufan la horta lafaha way u roon yihiin ma aha inaan idin leeyahay saliidda isku badiya ama dufanka isku badiya laakiin wax kasta oo dufan leh waxa weeyaan cayilna way keenaan lafahana way u fiican yihiin marka ilmahoo kale hooyooyinka Soomaalida waxay jecel yihiin inay carruurta cayiliyaan lafta u dhisaan cunugeeda uu si fiican uu durba u soo koro marka insha Allah ilmaha uga faa'iidee aad bay u anfacaysaa sababtoo ah ukuntu aad bay ilmaha u anfacdaa cayilna way keenaan lafahana way u fiican yihiin marka ilmahoo kale hooyooyinka Soomaalida waxay jecel yihiin inay carruurta cayiliyaan lafta u dhisaan cunugeeda uu si fiican uu durba u soo koro marka insha Allah ilmaha uga faa'iidee aad bay u anfacaysaa marka hore waxaan u baahanahay digsi sidoo kalena waxaan u baahanahay batarkan waxaan ku darsanayaa 3 qaado oo bur ah burka cad oo 3 qaadaan ku darsanayaa haddii aan u baahdo burka waa ku sii badsanayaa in yar oo qalka biyihiisaan ku dhibicsanayaa qalku wuxuu u yeelayaa dhadhan saas furfurkaabuu noqday iskuma dhegaayo saasuu furfur u yahay hadda waa diyaar insha Allah waan ka qaadi doonaa haddii Ilaahay idmo markaas saasuu u kala daadanayaa looma baahna inuu burku kaa noqdo uu sida bur caadi ah kaa noqdo markaasa marka haddana waa ka qaadaynaa asxaabe insha Allah ta'ala baaquligaana soo qaatay kadibna burkii baan ku shubanayaa iyo subagii iyo intii subagii burkii iyo filfishii iyo cusbadii iyo qalkii waxa igu jira waa 1 qaado sokor ah haddaad rabto waad ka badsan kartaa 3 xabo kuna halkan igu jirto saa u jeedaanba intaana isku qasaaya saanu in noqday laakiin xoogaa wax yar bur baan ku darayaa wax yar in jilis qaadada labadeeda bur aan ku darsanayaa insha Allah ta'ala haddana waxaan ku shubanaynaa bacdaan ku shubanaynaa hadduu Ilaahay idmo si aan saliidda hadda way ii kulushahay xoogna uma kulula in baa ka fiican oo kan weyn durba maaragta saas ayar dabkood wuxuu kaaga kululaado isagoon kuu bislaanbu kaa gubanayaa marka waa inuu dabku kuu qandac fiican kuu yahay saliid xoogna aysa kaaga karin qabowna aysa kaa ahayn sidoo kale halkan waxay igu jira saa u jeedaan waa sokor waxaan ku darayaa wax yar oo qorfa ah qorfaha budada ah ayaan ku darayaa saasaan ku leeyahay qorfuhu carafna wuu siinayaa macaanna wuu siinayaa hadda waa diyaar waa ka dejinaynaa insha Allah ta'ala ma waan ka guraynaa waa u jeedaan inaba caadi maahan isagoo kulul baa waxaad ku guraysaa sokorta dhexdeeda qorfihii shiidnaayo sokortii baad ku dhex ridaysaa saa markay tahay saasaad ku leedahay saliidda iyo qorfaha ee sokorta iyo qorfaha dhex gelgelinaysaa
marka uu ku dhagayo uu qabsanaya hadhowna dhadhan fiican buu yeelanaya halka sooskii aan ku cuni lahayn baa noogu jira hadduu ilaahay idmo hadda waa tijaabinaynaa insha allahu tacaala sidii caadadaba noo ahayd aad buu u jilibsan waad ujeedaa saasuu kala jabaya insha allah casariyaad ka dhiganaysaa oo quraacbaad ka dhiganaysaa oo ciddaad rabtaad ku casuumaysaa mar walba wakaasaa maasha allah bismillaah wax la qoori karo maahan run ahaantii aad buu u macaan badan yahay maasha allah adinkana ka faa'iidaysta lagama sheekayn karo carruurta markaad u samayso koobkoobkooda shaaha cadayska aad ku siiso kale iska arag lafaha u dhismaayo way cayilayaan sababta ah borotiin baa ka buuxa ukun baa ku jirta subagna sidoo kale asna lafuu dhisaa batarka ama subaga caadigaaba ama saliid wax kasta oo dufan la horta lafaha way u roon yihiin ma aha inaa idin leeyahay saliidda isku badiya ama dufanka isku badiya laakiin wax kasta oo dufan leh waxa weeyaan cayilna way keenaan lafahana way u fiican yihiin marka ilmahoo kale hooyooyinka soomaalida waxay jecel yihiin inay carruurta cayiliyaan lafta u dhisaan cunugeeda uu si fiican uu durbo usoo koro marka insha allah ilmaha uga faa'iidee aad bay u anfacaysaa sababta ah ukuntu aad bay ilmaha u anfacdaa